shirkan wadatashiga ah ee looga hadlayay arrimaha roadmapka isla markaana ay ka qayb galayeen haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay xarunta Xalane ee gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho. shirkan oo ay garwadeen ka ahaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca siyaasadda ee arrimaha Soomaaliya oo ay ka qayb galayeen haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa loogu ururinayay haweenka Soomaaliyeed aragtidooda ku aadan arrimaha roadmapka. shirka ayaa dhammaan haweenkii ka qayb galayay waxay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen mid kasta sida ay u aragto arrimaha roadmapka oo xilligan khilaaf baan ka dhaxdheliyay baarlamaanka Soomaaliya. waxaana haweenkii ka qayb galay halkaasi dhammaantood u badnaa aragtidooda in la sugo amniga iyo sidoo kale in la sameeyo guddi musuqmaasuqa ka hortago isla markaana uu hogaaminayo haweenka Soomaaliyeed. shirka uu furay Umar Arab Ibrahim oo ah sargaal ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda ku-meelgaarka ee Soomaaliya ayaa gabagabadiina waxa soo xiray wasiirka gaashaandhigga xukuumadda ku-meelgaarka ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. shirka ayaa khudbado kala duwan waxa ka jeediyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, wasiiro iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee xukuumadda ku-meelgaarka ee Soomaaliya Marwo Maryan Aweys oo halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in arrimaha roadmapka ay muhiimadda uu siin doono haweenka Soomaaliyeed isla markaana aragtida haweenku ay tahay mid muhiim ah oo lama ilaabaan noqon doonto. mudan ra'iisul wasaare sidaas horeba ugu maqashay qaabka uu sheegay waxa halkaan ka socday seminar socday saddex maalmood waan uga hadlaynay qorshe hawleedka iyo sida aan rabnay inaan ugu wacyigelino haweenka ku nool ee Soomaaliyeed ee gobolka kala socda si ayagana ay ula socdaan barnaamijka qorshaha dawladda ay ku shaqeynayso in ayagana talooyinkooda iyo fikradahooda ay uga geystaan. alxamdulilah rabbil caalamiin inta uu seminaarka uu socday haweenka waxay u kala bixeen kooxo afar oo lagu saleeyay tiirarka uu ku saabsan yahay uu ku kooban yahay qorshe hawleedka ayagoo fikradahooda qaaliga ay ku soo jeediyeen oo ay ugu weynayd dhinaca amniga iyo qaabka haweenka ay diyaar ugu yihiin inay ka qayb qaataan nabadeynta ama soo celinta sumcaddii Soomaaliya lagu yaqaanay. kusimaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku-meelgaarka ee Soomaaliya ahna wasiirka gaashaandhigga xukuumadda ku-meelgaarka Xuseen Carab Ciise ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in haweenka doorkooda uu yahay mid aan la iloobi karin isla markaana aan laga maarmin. waxaana haweenka Soomaaliyeed oo ugu baaqay inay u istaagaan sidii laf ahaantooda ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha roadmapka hirgelintiisa. isaga oo wasiirka gaashaandhigga sheegay in roadmapka haddii uusan ku jirin aragtida haweenka uusan socon doonin. ummadii goosatay inay dumarkeeda ayna ku soo darin xisaabta meel ma gaadhayso taa waa la hubaa. waxaan qabaa anigu runtii xataa ragnimada ku jirta in dumarka la ixtiraamo, in dumarka wax la weydiiyo, laga soo qayb geliyo runtii talada mustaqbalka dalka Soomaaliyeed. anigu waxaan qabaa runtii waa la taagan yahay maanta maalin waqtigii baa la taagan yahay. saan ognahay runtii la soo sheegaa wanaagsan marka la eego golaha wasiirada in qof dumar oo kaliya ku jirta anu taa xaq ma arko. hadalku wanaagsan yahay marka la soo yimaado in waxa la doonayo la sugu sheekeeyo laakiin runtii ficil baa la doonayaa. marka waxaan qabaa maanta meeshii baa la joogaa in waxaan qabaa in dumarka lagu soo daro meel kasta oo laga talinayo mustaqbalka Soomaaliya in dumarna fadhiyaan qayb libaxna ay ka qaataan waa way nagu waajibaysaa. markii la soo xiray shirka isla markaana laga soo baxay hoolka shirka ayaan banaanka hore ee hoolkii shirka uu ka dhacayay aan kula kulanay qaar ka mid ah haweenkii ka qayb galay. gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Caasho Geesdiir ayaan si gaar ah u weydiiyay waxa kulanka ay ka faa'iideen iyo sidoo kale waxa haweenka kaga aadan arrimaha roadmapka oo xilliganba ah in baarlamaankii Soomaaliya khilaaf ba'an uu soo kala dhax dhigay. roadmapka hadee qaylada iyo dhibaatada ka jirto kala anagana waayo roadmapkii kala dumarka lagu darsado dhaqankii go'aankii laga gaaray ayaa la gaaray. waxa soo saxeexana kullayba waxay ahaayeen ra'iisul wasaaraha iyo wasiir ka socdo Puntland iyo wasiir ka socdo galmudug kaliya ahaayeen saxiixa iyo waxay ahayd muhiido kale ama ay isla gaareen kaliya inay tahay ayaa meesha ka muuqatay. laakiin haddana wax way dhacaan oo si ku dhacaanba laakiin waxa aaminsanahay in wax laga bedeli karo qaladaadkaas haweenkana ay qayb ka qaataan. madan wada tashiga ay laga soo qaban qaabiyay xafiiska qaramada midoobay ayaa mudooyinkan waxa uu ahaa kuwa siyaabo kala gooni loogu qabanaya xarunta Xalane ee gudaha magaalada Muqdisho.
maxamed maxamuud jimacade universal TV muqdisho.